waa tahay daawadayaal waa mar kale iyo xubinteena kooban ee daahqaad oo markan aynu wax ka ogaan doono in kooban noloshii xaaji cabdi waraabe oo Allah u naxariistay maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa. xaaji cabdi magaciisa oo dhameystiran waa Cabdikariin Xuseen Yuusuf, naanaystiisa oo ah mid ku baxday dhacdo aynu gadaal ka xusi doono ahna mid dad badan ay u yaqaanaan aadna oo ugu caan baxay waa Cabdi Waraabe. hadda daadiisu kor waxay u dhaaftay 110 sano ugu dhawaan. waxa uu ku dhashay laagta jeexan ee ka shaqeysa madaarka Hargeysa oo magaceedana la yiraahdo Ubaale. xilligii uu xaaji cabdi dhashay ma uu dhisanayn madaarka diyaaraduhu. dhulka uu ku yaalo madaarka Hargeysana waxa loo yaqaan waqtiga masallaha, inkastoo aan wax la qori jirin oo aan si rasmi ah loo garan karin sanadaha uu xaaji cabdi dhashay. haddana sanadka uu xaajigu dhashay waxa uu ahaa mid caan ah oo ku caan ah laba arrimood labadaba. guga uu xaajigu dhashay waxa uu magaciisu ahaa Caana Weyne. gugani waa mid caan ku ahaa guud ahaan bulshada Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan bulshada Somaliland. uguna dambeeyayna taariikhdii xaaraamone. sanadkii uu dhashay xaaji cabdi waxa ay ugu dhawaan noqonaysaa 1905. waxa uu xaaji cabdi si sax ah u garanayay xilligii caaqilka uu noqday Allah u naxariistay oo ahayd 1940kii, markaas ay daadiisu ahayd 35 sano jir. marka la kala jaro 1940 iyo daadiisu oo ahayd 35 waxa soo baxaya inuu dhashay 1905. xaaji Cabdikariin hooyadii waxa la oran jiray Qaayib Faarax Shabeel, aabihii Xuseen Yuusuf Aadan waxa la dilay isagoo ay 40 bixii uga hadheen 3 habeen. si kala hadii loo dhigo Allah u naxariistay xaaji cabdi aabihii Xuseen Yuusuf waxa la dilay markii uu jiray 37 habeen oo kaliya, waxaana lagu dilay dagaal qabyaalad ku salaysan oo ka dhacay magaalada Hargeysa. siiba koob kaabiga u saaran bridge-ka koowaad ee ku yaala bartamaha Hargeysa oo u dhaxeeyay qaar ka mid ah beelaha deegaanka Hargeysa. waxa uu la dhashay 14 caruur ah oo ay walaalayihiin, kuwaas oo inta badan yaraan ay ku xijaabteen marka laga reebo isaga, walaalkii Neer Xuseen iyo walaashii Faadimo Xuseen oo caruur ka tagay. Allah u naxariistay xaaji cabdi aabihii waxa uu caaqil ku abtirsada mid ka mid ah qoyskooda cuqaasha oo ugu cimriga dheer. berigii hore waxa ay beeluhu lahaan jireen madax dhaqameedyo leh magacyo kala gedisan sida garaad, suldaan, boqor, wabar, imaam, ugaas iyo malaaq. beesha uu xaaji cabdi ka soo jeedaa waxa ay lahayd saldanad fac weyn oo ilaa hadda jirta. waxa uu xaaji cabdi ka waramay in ay jiri jireen guurti la talisa suldaanka. qofka ka tirsanaa waxa la oran jiray beeldaaje. beeldaajayaashu waxa ay gorfeen jireen kana doodi jireen arrimaha beesha la soo gudboonaada sida colaadda, nabadda iyo wixii la mid ah, iyagoo soo saari jiray go'aano uu gudoomiyo suldaanku. waxa uu xusay in nidaamka beelaha ku dhisnaayeen wada tashi, suldaankuna aanu keligii awood u lahayn inuu go'aan gaadho. waxaana lagu mahmaahi jiray bahina waa xeertay, boqorna waa gudoomiyey. wixii ay guddigu soo go'aamiso ayuu suldaanku taftiir ku samayn jiray oo uu oran jiray halkaas ayuu dalab ka leeyay. kolba warabka laga saarana sidaas ayaa taladu meel mar ku noqon jirtay. xaaji cabdi Allah u naxariisto oo la weydiiyay kolka la sameeyay cuqaasha waxa uu sheegay in cuqaasha la sameeyay markii ay dawladda Ingiriisku dalka qabsatay. caaqiladii ugu horeeyay ee ay dawladda Ingiriisku magacaawday ee kamid ahaa beeshiisana waxa kamid ah caaqil Xaji Meegaag Cilmi ilka dheere iyo caaqil Yuusuf Aadan oo ahaa xaaji cabdi awowgi. kolkii uu gooriyada xaaji cabdi awowgiina waxa xilkii caaqilnimada loo cumaamaday aabihii Xuseen Yuusuf oo madax dhaqameednimadii ka soko ahaa hanad lagu hirto kula dhiiran colaadaha kana gaadhay darajada cid ugu soo dara. taariikhyahan yaqaanada waxa ay xaqiijiyeen in beesha Xuseen Yuusuf dirirta ka maagi jirtay la'aantii. hal abuur xusayay diracnimada Xuseen Yuusuf ayaa tix ku yiri xildhibaanku waa is wada yaqaan xuladka reeraha ee iminkana Xuseen Yuusuf oo xiimaya imane. Allah u naxariistay xaaji Cabdi Waraabe oo in muddo ah ka soo arriminayay arrimaha iyo nabadeynta Somaliland ayaa maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 10kii bishii shanaad 2019 oo ku beegan maalin Jimco ah. xaaji Cabdi Waraabe waxa uu ku geeriyooday Allah u naxariistay isbitaal ku yaala gudaha magaalada Hargeysa. intaas waxaanu ku soo koobaynaa xubinteena koobaneed ee daaqaad oo aan markan ku soo qaadan doonay Allah u naxariistay taariikhdii marxuum xaaji Cabdi Waraabe.